عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فيدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka saxaafadda iyo marti sharafta kale dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta ay taariikhdu tahay 6 bisha 2021 kalfadhiga 8aad kulankiisii gaarka ah ee afraad kooramka annaga waa 189. ajandaha kulanka waa warbixin ku saabsan xaaladda guud ee dalka iyo doorashooyinka qaranka oo warbixintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu jeedin doono golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka sida uu qabo qodobka 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. madaxweynaha in mar walba uu codsan karo inuu hor yimaado golaha uuna warbixin siiyo. xildhibaanada sharafta leh sida aad la socotaan waa markii labaad ee madaxweynaha halkan uu soo fariisto ayadoo uu ka hadlayo arrimaha doorashooyinka. waa la socoteen doorashadii 2021 marka laga gudbaayay ee loo gudbaayay doorashada dadbanayd madaxweynaha halkan uu yimid wuxuu noo sheegay in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ay wada kulmi doonaan. waxaa laga soo wada hadlayna ay yihiin sida waddanka doorasho wakhtigeeda ku dhacda loo qaban lahaa. kulankaasi wixii uu la soo kulmo wuxuu noo sheegay in madaxweynaha uu la soo noqon doono oo halkan uu keeni doono. kulankii madaxweynaha uu ka qayb galay marka ugu dambeysay halkan ayaa lagu soo gebagabeeyey 17kii September. dokumentigii ay ku heshiiyeen ama heshiiskii siyaasadeed ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka xubnaha ka ah dowladda federaalka halkan ayaa laga ansixiyey. waa markii labaad oo madaxweynaha uu ku soo noqonayo baarlamaanka uu la soo noqonayo arrimaha doorashooyin ku saabsan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadli doonaa warbixin uu naga siin doonaa sida ajandaha ku qoran xaaladda guud iyo doorashooyinka heerka ay marayaan. ajandahan marka hore ansixinaynaa. ajandaha ansixino. waa mahadsantihiin. waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu u jeediyo khudbadiisa. soo dhow mudane madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم. guddoonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh bahda saxaafadda golaha wasiirada halkan nala jooga xukuumadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ilaahay baa mahad leh oo halkan maanta isugu kaay keenay iyo fursaddan qaaliga ah oo aan haysanno aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka. xaaladda dowladda waxaan u deenayaa ra-iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idiin imaan doona, laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka ayaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo. xaqiiqatan ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo muddaxiloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa
Diseembar 27 kadibna aad ansixiseen maxaan ku yiraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda golaha adeega dastuurka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa welina aad gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aana gaaraysaan go'aano masiiri ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ballanteydii aan fuliyey hadda ka hor aan idhi ma dhici doonto baarlamaan awooddiisa la qaato oo ay madal qaadato ma dhici doonto baarlamaan albaabada la isugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo 1 sano ah alxamdulillah hadda waxay u eg tahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin beddelaya xildhibaano la doortay oo keliya taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno waxa weeye waa waajibna saaran dalka aysan ka dhicin firaaq dastuuri ah inaysan ka dhicin waana waxaan aaminsanahay waxaa xaqiiqo ah annagu inaan nahay dad xora dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan oo aan nahay dal buuxa dal buuxa oo go'aan leh dhegaysto inta miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa intiinaba joojiya madaxweynaha la dhegaysto nood ka qaata bas waxaan guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladdan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma laha muxaafid ma laha mucaarad ma laha waxa weeye waa hawl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla muxaafidna ma aha goob mucaaradna ma aha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah ma aha waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa idinku aad leedihiin ma aha waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay weeye marka sacabka iyo qaylada dan ma aha inaan is dhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah ummaddana naga sugaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod bilaawgii 2017 markii la ii doortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod mabaadii aasaasi ah weeye waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladdoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan waxa aan magacawnay guddi la yiraahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe
ama FNTC la yidhaahdo yaan magacawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha, xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftigooda soo dirsaday. waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan khayraadka dalka uu ugu horeeyo shidaalka. waxaa kale oo shaqadooda ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada, shuruucda doorashada laysu soo dhoweeyey dowlad goboleedyada, marka dambena sharci golahan uu ka soo saaro. ilaahay waa noo fududeeyey shirkii baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada. waxaa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo. labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyey oo kulli haddaan nahay dowladdii dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka midka ahaa ay wada seexeen aanu ku gaarnay go'aan in aan dalka uga gudbinno aan u gudbinno doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yidhaahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan. kulligeen waa isku raacnay, waa saxiixnay halkaas, waana wada qaadanay. kadib waxa aan u soo gudbinnay golaha wasiirada. golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhammaysteen oo sharcigii ay diyaariyeen golahan iyo u soo diyaariyeen ama u soo gudbiyeen. golahanna runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay, inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn. maxaa yeele annagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalkao dhan ka dhaca. macnaheedu waxaa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku rahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragti duwanaansho siyaasadeed in laga maarmo oo hore loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho, uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo u adeegayo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay. guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay, wuxuuna la yimid nooc kale oo la yidhahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore. anugu runtii raalli kama ahayn, waana ogaa inuu dhib la imaan karo, laakiin waa idiin tanaasulay. waa diidi karay, waa viito garayn karay ama dib baa idinkugu soo celin karay. ma yeelin. haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas isaga waa idinla qaatay, anigoo ka dhex arkaya keliya inay ku jirto shacabka Soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan, ay ku doortaan axsaabay u baahan axsaabay rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan. tanaasulkayga ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday. waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii. Puntland iyo Jubbaland yaa diiday oo yidhi wakhtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah. muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno, waa ku guulaysan weyn. waxaan ku casumay magaalada Muqdisho halkan inaan foolkafool aan uga arrinsanno arrintaas, go'aan degdegna aan uga gaarno bacdamaa ay noo harsan tahay wax sanad ka yar. nasiib darro labadii maamul waa diideen, inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aanan doonayn si gaar inaan u shirno. waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan Dhuusamareeb, halkaas ay igu casumeen. iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan Samareeb ugu tago markay ay kulmeen Samareeb 1. waa idin imid, waa idin hor imid, waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado. Samareeb 2 waa ka qayb galnay. nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin. waa ka cudurta maxaan ku raahdaa Samareeb 2 waa nimid, waa ka hadalnay,
wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballannay inaan samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeenna aan go-aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idinla tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal walaalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay samareeb 3 nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen saddexdii kale yaa go-aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyey labada kale aan sugno waa raadinay waa noo imaan waayeen waxaan u fadhinay 10 casho maalintii 10aad yaan go-aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii deyno markii aan quusannay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayn haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaata waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobeeyeen waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo degaanadii in la badiyo dadkii codeynayana iyagana sidooda kalena la badiyo guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go-aankaas gaarnay waxaan damcay in aan jubbaland iyo puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdamaa aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayn inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkaayeen dhib u arkaayeen kii 16kiina 2016na uusan ahayn waa ka biyi diideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan muqdisho ku casumo marka muqdisho yaan ku casumo waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed ee maxaan ku ihahdaa September 17 September aan go-aanka ku qaadannay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tegey tii dhusmareebna waa ka tegey tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkayga wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoweysta waxaa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golahii shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiye qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhowaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan damca inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdulaahi Deni isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkugu harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yidhahdeen kama noqonayno wixii aan rabno waa helnay waana kaa adkaanay waayo aniga waxba kama qabo waa tanaasulaaye
waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan waxaydan wax ka soo noqonaya ma leh ee baarlamaanka noo gee hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixinaa xitaa heshiis ku dhaafi mayna is afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya somalilan hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah yay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas yay ku dhammeeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysannay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laisku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran uu yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaanna ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah ama ay tahay guddigan guddiga ku habboon calaa ayi xaal sebtembar 17 heshiiskii ahaa oo ay iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday puntland iyo jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkaan ugu cebeynna shacabka soomaaliya aysan qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idiin sameeyey waxaan ummaddoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah oo ku jirana annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala soxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhowaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo siciidani uu yidhi ii soo dir ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaarahan wada hadlaynaaye ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raahdaa joogay meesha la yihahdo garowe magaalada garowe 10 beri ku dhowaad 7 beri markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroobi weydi intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyay dadku iskugu dhow yihiin deni axmed qorqoor yaan u diray aan ku idhi bal la soo xaal haddii iyadoon la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xallin karno bal ka keen dalab hadday hayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd samareebe xamar uu toos u yimid isagoo farriintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta 3 arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anugu marna ma odhanaayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb 4 aan odhan karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filaayey haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dubbe yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan
ee sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaaskaas ama hakadkaas na galay. ugu dambayn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar. waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar, taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka, sida doorashada guud ee qaranka, kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay. walaalayaal, annagu diyaar waxaan u nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar. waxaa nooga baxay wakhti aad u fara badan laga soo bilaabo Julaay, Juun aan idhaahdo sanadkii lasoo dhaafay ilaa shalay, waan odhan karo muddo ka badan 8 bilood 9 bilood weeye. intii aan saxiixnay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood ayaa laga joogaa. waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho, inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri, aysan dhici doonin. idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan walaalahan oo aad ku qancin kartaan 17 Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga miro keeno ama laga miro dhaliyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. madaxweyne, horta waxaan idiin sheegayaa xildhibaanada sharafta leh xeeroosaadka ha la ilaaliyo. xeeroosaadka sacabna ma ogola, miisna in la garaaco ma ogola. qofka fikirkiisu cabiri karaa. kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay. waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo. aad iyo aad u mahadsantihiin.